ku nool Gaarisa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa loo caleema saaray in ay noqoto ugaaska beel ka mid ah beelaha halkaasi dega. Saamey Axmed Haruun oo hadashay markii la caleema saaray kadib waxa ay sheegtay inay haweenka reerkeeda si cadaalad ah ugu shaqayn doonto sidoo kalena ay caawin doonto raggii u yimaada. Waa dhaqan ku cusub bulshada Soomaalida in haweeney ugaasnimo loo caleema saaro. Xilka ugaasnimada waxaa dhaqan ahaan Soomaalida u qabta rag. Saamey Axmed Haruun oo la hadashay warbaahinta ayaa ka warbixisay waxa ay ku dooratay xilkani. Ugaasnimadeyda waxa ay ka bilaabantay rabitaankayga oo ahaa inaan beeshayda mideeyo. Hawshan waxa aan ka shaqaynayay muddo 3 sano ah ayay tiri. Wadatashi badan kadib waxa aan istusnay in nabadgelyada iyo xilkaba uu gacanta ugu jiro dumarka oo ah hooyooyinka dhalay ilmaha. Waa inaan walaalnimadii iyo wanaagii ka dhaxeeyay dadka la muujiyaa. Ugaasad Saamey ayaa sheegtay in hawshani ay kaalin mug leh ka geysteen dumarku oo lahaa fikradda iyo qabanqaabada. Ra'yigan iska lahaa waa arrintan bilaabay 20 dumar ah. Waxaan wacyigelin ka dhex abuurnay bulshada. Hadda waxaan gaadhnay ilaa 500 oo xubnood oo kulamo aan yeelanay kadib waxa ay go'aansadeen in ay siiyaan fursad aan ugaasad ugu noqdo, ayay Saamey warbaahinta ku tiri. Haddaba sidee kula shaqayn doontaa ugaaska beesha ay ka soo jeedo? Xilkan cusub ee loo dhiibay Saamey lama soo wada dhaweyn. Waxaa jira qaar ka mid ah oday dhaqameedyada isla beeshan oo ka soo horjeedsaday caleema saarkan.